waa maxay doorka qareenka degmada ee dacwo ku oogista dembiyada si ka duwan difaaca dadweyne qareen difaaca kaasoo doorkiisu yahay inuu matalo hal macaamiil markiiba waa inaanu eegnaa waxay ku jirto danta ugu wanaagsan ee badbaadada dadweynaha marka aynu eegno dembi ku lug yeelanayo qof waxaa ina saaran waajib si sharci ah inaan dhegaysanno dhibanaha ama qoyska waxaan weydiinaynaa waxa ay rabaan balse taasi ma noqon karto dhamaadka dooda sababtoo ah waxaa jira dad aan lahayn xubno qoys mana u yeelan karno jumlado kala duwan keliya sabab ah in hal qoys uu wax rabo oo hal qoysna uusan lahayn qoys yimaada waa inaan sidoo kale eegno waxay ku jirto danta guud ee badbaadada dadweynaha sababtaas awgeed waxaan inta badan diiradda saarnaa eedaysanaha waa inaanu eegnaa qofkani gaarka ah oo aan go'aansano waxay ku jirto danta dadweynaha ama badbaadada dadweynaha ma dhaqan celin baa ma xabsi ku hayn baa qofkani ma ahan miya mid badbaado u leh bulshada dhex joogeeda ku dhowaad qof kasta oo xabsi gala waa uu ka soo bixi doonaa oo qayb ka mid ah shaqadeenu waa inaanu samayno inta karaankeena ah si aan u xaqiijino in qofkaasi uu dib u dhexgeli karo bulshada xukunada xabsiga dheer khasab ma ahan qaabka loo sameeyo sidaas